beesha ka soo jeeda degmada Maydhiyo waqooyiga gobolka Sanaag ayaa maanta shir ay kaga tashanayaan aayahooda uga furmay buurta dalxiiska ee Daalo taasi oo 25 kiiloomitir magaalada Ceergaabo kaga beegan waqooyiga. Shirkan oo ahaa shir ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay wufuud isaga kala timi dalka gudihiisa iyo dibadiisa, madax dhaqameedka beesha, aqoon-yahan waayeel, haween iyo dhalinyaro. waxaana ugu horeynba shirkan furitaanka faahfaahin ka bixiyay xildhibaan Jaamac Jibriil Deeli kan ku furanayna shir beesha Jibriil Turwa ee degan waqooyiga Ceergaabo ilaa dhinaca buurleyda xeebaha beesha degan shir ayay ku leeyihiin maanta halka shirkaas ayaa ka furmaya. waa rabbi bari siyaasad male xusbi lagu soo dhaweyn maayo lagamana hadli karo wax siyaasada iyo wax xusbiya oo loo shirayaa ma jirto. waxa laga sheegayaa maanta oo ay tahay bishu 7 bishii 6 2015 inuu halkan ka furmay shirkii beesha Jibriil Turwa. shirka oo ku salaysan nabadgelyada beesha iyo midnimada beesha iyo wada tashiga beesha iyo dhaqanka beesha. beeshu waxay isugu timid dan gaar ahaaneed oo iyadu ay leedahay oo ay aayaheeda kaga tashanayso. reerka Jibriil Turwa ee shirka ku qabsanaya halkan anigoo ah gudoomiyihii guddiga qabaqaabada waxaan aad deegaanka beelaha deegaanka waqooyiga ilaa iyo xeebta gobolka Sanaag ama magaalada madaxda halkaas shir ku leeyihiin beesha Jibriil Turwa muddo hore la ilaamiyay maantana ay qabsoontay la isugu yimi ilaa iyo dibad ilaa iyo gobolada kale sigay sida mas'uuliintii iga horeysay ee dhinaca xeerbeegtiga waayeeladii reerka xukuumaya Jibriil Turwa ay soo sheegeen wuxuu hadalku ku eg yahay shirkani waa shir nabadeed oo uu leeyahay Jibriil Turwa oo guud. marka maanta daalaanu joognaa in badan baan aan maqlaayay daalo maanta daalo oo reerku degan yahay Jibriil Saalax yaan joogaa. Salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan uga sheegnaa dabad iyo gudaba sida ay noo soo dhaweeyeen baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. shirkaas siday sheegeen xildhibaanada iyo chief caaqilka iyo cuqaasha kale dhammaantoodba waxa weeye shir nabadgelyo waa shir nabadeed insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inuu si nabad noogu dhamaado. waxa runtii goobtan joogtaa wax kale ma aha shir siyaasadeed ma aha dana gaar ah oo kale oo cid lagu durayaa ma jirto. waa shir daneed, waa shir wadareed, waa shir beeshu ay runtii halka ku leedahay madax iyo minjabana ay isugu yimaadeen. inay beeshu ay iskugu timi meesha cuqaasha ka soo qayb gashay oo ilaa 5 jiif caaqil ah oo cuqaashii guud ah ee reerka iyo xildhibaanadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintiiba. waxaan kaloo aan aad ugu mahadnaqayaa sidii cuqaasha iyo waxgaradka iyo ay ka dhawaajiyeen shirkaasoo aan ahayn shir siyaasadeed ee ah shir daneed. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star TV, buurta dalxiiska ee Daalo, magaalada Ceergaabo.